bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka duhur qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed oo weerar afka ku qaaday xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada maamulkaas madaxweynaha Hirshabelle oo kulan aan caadi ahayn la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka kana dalbaday amniga wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar al-shabaab oo nin ku dilay al-shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay nin horay dil uga geystay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan duulimaadada garoonka aadan cadde oo hakad galay iyo muran xilligan taagan doonyo iyo maraakiib ganacsi oo ku xayiran xeebaha Boosaaso madaxweynaha Galmudug oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan daraawiishta Galmudug dil ka dhacay balad xawa iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya ciidanka Puntland oo howlgalla amniga lagu xaqiijinay ka sameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari akhbaraadka caalamka aad ku dhageysan doontaan warkeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Turkiga oo war ka soo saaray dagaalka u dhaxeeya Armenia iyo Azerbaijan baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa war ka baxaya radio Afrika idaacada Afrika kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacada adeer kale idaacada la dhageysta ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo talaada taariikhduna ku aadantahay 29 bisha 9 sanada 2020 intaad maqasheen waxa ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duur emikiyatan u diyaar garoobayay oo inta ka faahfaahsan duulimaadadii garoonka aadan cadde ee Muqdisho ayaa hakad galay iyadoo xilligan uu taagan yahay muran u dhaxeeya maamulka garoonka iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadka diyaaradaha sababaha ugu weyn ee maanta hakadka loo galiyay duulimaadadii ka bixin jiray garoonka diyaaradaha aadan cadde aadin jiray gobolada dalka ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay ciidamo ka tirsan taliska nabad sugidda kuwaas oo shaqo joojin ku sameeyay mid ka mid ah diyaaradaha aadi jiray gobolada dalka gaar ahaan garoonka Doolow waxaana la sheegayaa in sidoo kale guddi ay ku mideysan yihiin shirkadaha duulimaadyada garoonka aadan cadde ay gebi ahaanba joojiyeen shaqadii socotay kadib markii ay xal u waayeen muranka ka dhashay diyaaradahaas la joojiyay ee aadi jiray gobolada dalka gaar ahaan shirkadda ka mid ahayd shirkadahaas oo laga joojiyay xilli ay ku wajahneed garoonka Doolow weli macada sababaha dhabta ee ka dambeeyay taliska nabad sugidda joojinta ay ku sameeyeen diyaaradahaas ka bixi jiray Muqdisho aadi jirana Doolow inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidanka saraakiishooda sidoo kale maamulka shirkadaas shaqo joojinta lagu sameeyay uu khilaaf soo kala dhexgalay walina waxaa taagan muranka inkastoo saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya halka ku sugan wali aysan ka hadlin balse dhowr jeer ay soo noqnoqotay arrintan oo ku aadan in xilliyada qaar ay cabasho muujin jireen shaqaalaha diyaaradaha garoonka waxaana kol hore sidaan oo kale cabasho dhigay qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka oo ka cabanayay shirkadda Fafore ee laga leeyahay dalka Turkiga taas oo maamusha gabi ahaanba garoonka diyaaradaha ee Muqdisho madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Laftagareen ayaa weerar afka ku qaaday baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo jeeda deegaanada maamulkiisa sida warbixinta warkaan uu ku dhameystirayo wariyaheena Mubaarak Cabdalla madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ku qaaday xildhibaanada baarlamaanka siiba kuwa ka soo jeeda maamulkiisa Laftigareen ayaa shaaciyay in xildhibaanada qaar looga xaq lahaa kuraasta ay ku fadhiyaan ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay jiraan dad u soo dhintay oo mudan in lagu qadariyo ehelkooda sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Koonfur Galbeed ma arbaabin kuraastaasi balse waxa uu tilmaamay in xildhibaan kasta laga doonayo inuu xushmeeyo ehelka dadkii u dhintay arrimaha siyaasadeed deegaanka waa deegaankiini dalka waa dalkiini dadka waa dadkiini 4 sano ka hor meesha la ka soo doortay wax isbedelay ma leh dadkii soo doortay waa idin joogaan odayaashii waa idin joogaan annagii waa idin joognaa albaabadaanada waa idin furan yihiin gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa waa idin kala shaqaynaynaa khilaaf la'aan ka shaqaynaynaa xasaanadiina iyo xildhibaannimadiina waa ixtiraamaynaa haddii xilka ilaahay baa bixiyee ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nin kasta muraadka uu leeyahay inuu ilaahay u sahlo kii helo iyo kii aan helinna sidii baan u ixtiraamaynaa sidii markaan aniga xildhibaan waayo aan xaq ugu leeyahay in la ixtiraam yaa idin ixtiraamaynaa karaamadiina iyo sharaftiina la dhowraayo yaa deegaanadiini ku soo noqonaysaan talaan insiinaynaa waxaa rabtaana in kala shaqaynaynaa
hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan gabagabo yahay muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay xildhibaanadu isku diyaarinayaan inay aadaan doorasho si mar kale ay ugu soo tartamaan kursiga xildhibaanimo ee beeshooda. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan daraawiishta galmudug sida warbixinta warkaan ay ku dhamaystirayso wariyaheena Saarakiin Cabdullaahi. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa tababar u soo xiray ciidanka daraawiishta galmudug ururka horseed oo muddo 5 bilood ah tababar ku qaadanayay xeerada Indhaqaris ee dowladka degmada Docol. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaa munaasabada xiritaanka tababarka ku weelinayay wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gobol ee maamulka galmudug iyo maamulka gobolka. tababarkan ayaa waxaa la soo xiray ku dhawaad 500 oo askari ah kuwaas oo la sheegay in loo diyaariyay xuraynta iyo difaaca deegaanada galmudug. madaxweynaha galmudug oo hadal u jeediyay ciidamada ayaa u mahad celiyay saraakiisha tababarka siinayay waxaana ciidamada uu kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda saaran. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kulan aan caadi ahayn la qaatay taliska militariga ciidanka dowladda Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raagiye qaybaha kala duwan ee qaybta 27 kulankan oo ka dhacay guriga madaxweyne Waare ayaa looga wada hadlay xaaladda amni Hirshabelle iyo sidoo kale dardargelinta barnaamijka kala guurka Soomaaliya ee xoreynta deegaanada Hirshabelle. madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanka xoogga dalka ay qaadaan howlgalo lagu xaqiijinayo ammaanka guud. madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanka xoogga dalka ay qaadaan howlgalo lagu xaqiijinayo ammaanka guud aysan bilaaban doorashada maamulka Hirshabelle. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka xoogga dalka laga rabo inay Hirshabelle kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar halkaas oo muddo ay ka dhacayeen falal amniga liddi ku ah. falalka amni darro ayaa sanadihii u dambeeyay ku soo kordhayay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar waxaana halkaas lagu dilay xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. al-shabaab ayaa nin horay dil uga geystay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan xukun dil ah ku fuliyay sida warbixinta warkaan marka uu ku dhameystiray wariyaheena Mubaarak Cabdallah. maxkamadda al-shabaab ee ku taala Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ayaa xukun dil ah ku fulisay nin al-shabaab ay ku eedeeyeen in uu dil ka geystay deegaano hoos yimaada deegaankaasi uuna dilay nin kale. qaadiga maxkamadda al-shabaab ayaa sheegay in ninkan uu qirtay falka lagu eedeeyay isla markaana xukunkiisa uu noqday dil. ninkan ay maxkamadda al-shabaab ay xukunka dilka ah ku riday ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Xasan Aadan Cali oo 44 sano jir ahaa oo horay si bareer ah u dilay Xasan Cusmaan Ibraahim. sida maxkamadda ay sheegtay goobta xukunkan oo ka dhacay oo ahayd goob fagaare ah ayaa waxaa isugu yimid 100 ruux oo dadka deegaanka ah kuwaasi oo daawanayay qaabka xukunka uu u dhacay. xukunada noocan oo kale ah ayay al-shabaab ka fuliyaan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka ay joogaan iyaga oo sheegaya qofka dilka lagu fulinayo inuu asiga qirto falka lagu soo eedeeyay. faahfaahinno dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan dil ka dhacay degmada Balad Xawe ee gobolka Gado sida warbixinta warkaan mar kale ay ku dhameystirayso wariyaheena Saarakiin Cabdullaahi. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya rag dhalinyaro ah oo ku hubeysnaa bistoolado ee gudaha degmada Balad Xawe ee gobolka Gado ku dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka. goobjoogayaal ayaa ku waramay in askariga la toogtay xilli uu ku sugnaa goob maqaaxi ah isla markaana raggii hubeysnaa ay risaas dhowr ah qeybaha sare ee jirka uga dhufteen kadibna uu geeriyooday. sidoo kale raggii ka dambeeyay falkaasi ayaa dhaawac ku geystay qof shacab ah oo goobta ka ag dhawaa uu dilka ka dhacay waxaana durba la dhigay xarun caafimaad iyadoona raggaasi ay halkaasi ka baxsadeen. ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee ku sugan degmada Balad Xawe ee gobolka Gado ayaa daqiiqado kadib goobta uu dilka ka dhacay askariga tagay iyagoona halkaasi ka qaaday meedka marxuumka. degmada Balad Xawe ee gobolka Gado ayaa waxaa xilliyada qaarkood ka dhaca falal amni darro ah isla markaana ay geystaan dhalinyaro hubeysan waxaana falkaasi mas'uuliyadooda sheegta al-shabaab. ciidamada maamulka Puntland ayaa howlgalo amni xaqiijina ka sameeyay qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaas sida warbixinta warkaan uu ku dhameystirayo wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Cabdiqaadir. ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay maanta gaareen deegaanka Carmo ee gobolka Bari iyo deegaanada hoostaga waxaana halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo balaaran.
howlgalkan ayaa markaa kusoo dhammaaday si guul ah sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka horkacayay, waxaana saraakiisha ciidamada ammaanka ee howlgalkan hogaaminayay la yeesheen laamaha amniga magaalada Carmo kulamo ku saabsan la dagaalanka al-shabaab iyo sidii markaa la iskaga kaashan lahaa dagaalka ay ciidamada Puntland kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab. Ciidanka ayaa intii ay ku sugnaayeen deegaanadaasi waxa ay markaa shacabka kula talinayeen inay markaa la soo wadaagaan laamaha amniga Puntland wixii khatar ku ah amniga ayna markaa la soo xiriiraan ciidamada. halka warkaasi duurdhagaysa oo idinkaga imaanay waa warbaahinta Afrika ee Muqdisho mikiyaadsan akhbaraadka caalamka. madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa war ka soo saaray dagaalka u dhexeeya Armenia iyo Azerbaijan. madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Armenia inay si degdeg ah uga baxaan dhulka Azerbaijan oo ay soo galeen si loo dhameeyo dagaalka u dhexeeya labada dal. ugu yaraan 22 qof ayaa isniintii lagu dilay maalinkii labaad ee dagaalka ka dhashay gacan ku haynta gobolka Nagorno oo ah gobol ku yaala dalka Azerbaijan balse deegan yihiin dad Armeniyiin ah. Ankara ayaa ballan qaaday in ay taageero buuxda sii doonto Azerbaijan. waxaa la gaaray waqtigii loo gabeyn lahaa xasarada gobolka oo ka dhalatay markii la qabsaday Nagorno. gobolka mar kale ayuu nabad heli doonaa haddii Armenia ay si degdeg ah uga baxdo dhulka Azer ahaan ay haysato, ayuu yiri Erdogan oo ka hadlayay magaalada Istanbul. intaas waxaa ku dhan dhageystayaal warkii dowlad kala socoteen warbaahinta Afrika ee Muqdisho. waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena.